kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino xogihii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda si gaar ah waxaan ku eegi doonaa janalkeena ka ah wararka caawa warbixin gaar ah oo aan kaga heyno diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku saabsan maalmaha ama toddobaadka xurriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo oo markaas shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba ay si weyn ugu diyaar garoobayaan caaba 12 saqda dhexe ayaana la filayaa in calanka la saaro munaasabada lagu xusayo iyo dabaaldegyo waaweyn oo magaalada Muqdisho markaasi ka qabsoomi doona madaxda dalka ugu sareeya ayaana munaasabada ka qayb galaya taariikhda kooban ayaa idin wadaagi doona iyo sida xaafadaha iyo meelaha dadka isugu yimaadaan lagu diyaar garoobayo sida taalada daljirka daasoon iyo fagaarayaasha kale ee sida weyn markaasi Soomaalida ay ugu dabaaldegaan markii ay maalmaha ama munaasabada kale ay jiraan maxaa kala socotaa taariikhda iyo maalmaha Soomaalida ku weyn 26 Juun iyo 1 Luulyo daawada haddii aad nagu cusubtahay nagu dhiirigeliyo subscribe inaad noo saarto kambalkana aad furtaan una share gareysaan saaxiibadiina kale meel kasta joogaan idinkoo commentiga laagana inoo sii reebaya aad baad u mahadsantihiin aan gudagalno barnaamijkeena caawa oo si gaar ah aan ku eegi doono warbixinta toddobaadka xurriyadda oo caawa markaas inoo bilaabo doonta hadduu ee bahraali ka noqdo magaalada Muqdisho waxaa si weyn loogu dareemayaa 26 Juun iyo 1 Luulyo oo maalmaha xurriyadda Soomaalida oo dalku weyn waxaana taalada daljirka daasoon meelaha quruxda badan dadka isugu yimaadaan ay dhalinyaradu ayagu markaas ku labisan calanka Soomaaliya markaasina ku muujinaya dareenkooda iyo farxadda ay maanta ama u leedahay caawa oo kale taariikhdu markay soo dul istaagto saqda dhexe 12 caawa haddaba warbixintan ayaa idinkaga diyaarinay ee ku soo dhawaada 26 Juun Soomaalida dunida ku nool oo dhan waxa ay u tahay ama ay u arkaan iftiin shidmay xilli gud badan uu jiray loona baahnaa ama neecaw qabow oo soo martay hal mar dad kuleel badan dareemayay dadka Soomaaliyeed ee deegan gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo gumeystay Ingiriiska gacanta ugu jiray ayaa maalin axad 26 Juun sanadkii 1960 waxa ay madaxbannaanida ka qaateen Ingiriis oo markaasi in muddo ah u talinayay dadaal badan soo baxay lagu taageerayo gobonnimada isku marxabeen damaashaad kadib waxa halkaas laga taagay calan Soomaaliyeed markaasina waxa wali gacanta gumeysaha Talyaaniga ku jiray dadka Soomaaliyeed ee degan koonfurta Soomaaliya nasiib wanaagsan waxa isla dhamaadka toddobaadkaas maalinimo Jimco ah ay taariikhdu ku beegneed 1 Luulyo isla sanadkii 1960 xornimadooda Talyaaniga ka helay dadka Soomaaliyeed ee degan koonfurta Soomaaliya saasina ayuu geyga dhulka Soomaalida oo dhan uu xor ku noqday balse kadib maxaa dhacay haddii aad nolosha ku ekeyso kaliya aaga aad taqaano waxa hubaal ah in aadan dhaafi doonin halkaaga isla markaana aadan gaari karin dhamaadka sidaas awgeed siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo farxadda ay ka muuqato waxay calanka keeneen gobolada koonfureed kadibna waxa halkaasi lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas ayay ka bilaabatay tallaabada dad iyo dalba Soomaaliyeed oo ixtiraam iyo karaamo ku wada noolaada dunida laga aqoonsan yahay sharaf iyo karaamo aan baryo ku imaanin lagana hayo dawladnimada dhowr sanadood kadib waxa dhacay qaladaad ay qoonsadeen dadka Soomaaliyeed ee deegnaa gobolada waqooyi ee Soomaaliya balse kadib dawladda Soomaaliya ayaana burburtay dadka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi degan waxa ayna sameeyeen maamul u gaar ah si ay Soomaaliya ay u go'aan oo ay banaanka ay ka istaagaan balse si walba oo aad tahay ama aad u qurux badan tahay haddii aadan dhameystirneen waxa tahay qof wali qabyo ah Soomaalina meel kuma gala goodo waxaana caawa markaasi daawadayaal si weyn loo xusi doonaa toddobaadka xurriyadda oo caawa oo kale ku beegan 26 Juun madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya munaasabad la filayo inay ka dhacdo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galaya mas'uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka madaxweynaha ugu horeeya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar kale oo kamid ah haweenka iyo soo kale odayaasha dhaqanka iyo inta badan ba shacabweynaha Soomaaliyeed in kastoo munaasabada madaxtooyada loo qabanayo tahay mid markaas aad u kooban ka soo qayb galaya waxaas ka badan markii waag uu dilaaco
ama caababa inta lagu guda jiro xuskaas in dhalinyaradu iyo qeybaha kala duwan ee guud ahaan Soomaaliya iyo caalamkaba laga wada xuso maalmahan qiimaha weyn inoogu fadhiya 26 Juun iyo soo kale kooda lulug waa kuwan sida aad u jeedaan ama aad daawanaysaan muuqaaladan quruxda badan waa fagaaraha daljirka Daason iyo goobaha kale ee dadku ay inta badan ay ku damaashaadaan halkaasuna ay ku soo galeen sida qiimeyn ay ugu hayaan maanta oo kale waxaana tani ay ka dhigan tahay in si ka duwan sanadkii hore 2020 sanadkan 2020 loogu xusi badan yahay sanadkan maadaama sanadkan inta badan dhalinyartu ay fahmeen qiimaha ay u leedahay toddobaadka xurriyadda muuqaalo qurux badan ayaa sidoo kale inoo wadaagi doona caawa haddii eebaha ragalaalno muuqaalo kale oo ku saabsan madaxda dalka khudbadaha halkaas laga jeedin doono madaxweynaha uu ka hadli doono taariikhda maalmahan ay Soomaalidu u leedahay iyo waxa markaasi heerar kala duwan ay soo maray Ingiriiska iyo Talyaaniga gumaysaashii sida xurriyadda looga helay waxaana erayada caanka ahaa habeenkii markaa calanka la saaray 12 sano dhexe ee sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne ka nasiib kana saar waa markaasi tixdii aadka u macaan badneed ee qulubta ummadda Soomaaliyeed ay ku weyn tahay oo caawa kale la xusayo isla markaana lagu dabaaldegayo ayahay daawadayaal intaas ayaan kaga gudbinaa wararka ku saabsan arrimaha markaasi xuska toddobaadka xurriyadda oo maanta ama caawa si rasmi ah markaas loogu dabaaldegi doono insha Allah hadduu ee bahraal ka noqdo adigana ka qayb qaado dabaaldega haddaba daawade nala wadaag oo fikirkaaga nagu hoos noogu reeb halka aad ku dabaaldegayso maalinta ama caawa subaxii ilaa iyo markaasi maalmaha ilaa kooda luuli laga gaarayo oo ah maalmaha toddobaadka ama toddobaadka xurriyadda nagu dhiirigelina subscribe noo saarto una sheergalaysan saaxiibadina kale meel kasta joogan idinkoo markaas ku mantiga like-na inoo reebay waad ku mahadsantihiin daawashadiina warbixino kale oo muuqaalo aad u xambaarsan iyo muuqaalada madaxweynaha iyo munaasabadda qaabka u dhacaysa ayaan idin soo gudbin doonaa fadlan isku haya channelkeena ka aha wararka aad baan kaga mahadcelinaynaa halkaas aan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyo waxaana caawa markaasi daawadayaal si weyn loo xusi doonaa toddobaadka xurriyadda oo caawa oo kale ku beegan 26 Juun madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya munaasabad la filayo inay ka dhacdo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qaybgalaya mas'uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka madaxweynaha ugu horeeya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar kale oo ka mid ah haweenka iyo soo kale odayaasha dhaqanka iyo inta badan shacabweynaha Soomaaliyeed inkastoo munaasabadda madaxtooyada loo qabanayo tahay mid markaas aad u kooban ka soo qaybgalaya waxaase ka badan markii waagu uu dilaaco ama caababa inta lagu guda jiro xuskaas in dhalinyaradu iyo qeybaha kala duwan ee guud ahaan Soomaaliya iyo caalamkaba laga wada xuso maalmahan qiimaha weyn inoogu fadhiya 26 Juun iyo soo kale kooda lulug waa kuwan sida aad u jeedaan ama aad daawanaysaan muuqaaladan quruxda badan waa fagaaraha daljirka Daason iyo goobaha kale ee dadku ay inta badan ay ku damaashaadaan halkaasuna ay ku soo galeen sida qiimeyn ay ugu hayaan maanta oo kale waxaana tani ay ka dhigan tahay in si ka duwan sanadkii hore 2020 sanadkan 2020 loogu xusi badan yahay sanadkan maadaama sanadkan inta badan dhalinyartu ay fahmeen qiimaha ay u leedahay toddobaadka xurriyadda muuqaalo qurux badan ayaa sidoo kale inoo wadaagi doona caawa haddii eebaha ragalaalno muuqaalo kale oo ku saabsan madaxda dalka khudbadaha halkaas laga jeedin doono madaxweynaha uu ka hadli doono taariikhda maalmahan ay Soomaalidu u leedahay iyo waxa markaasi heerar kala duwan ay soo maray Ingiriiska iyo Talyaaniga gumaysaashii sida xurriyadda looga helay waxaana erayada caanka ahaa habeenkii markaa calanka la saaray 12 sano dhexe ee sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne ka nasiib kana saar waa markaasi tixdii aadka u macaan badneed ee qulubta ummadda Soomaaliyeed ay ku weyn tahay oo caawa kale la xusayo isla markaana lagu dabaaldegayo ayahay daawadayaal intaas ayaan kaga gudbinaa wararka ku saabsan arrimaha markaasi xuska toddobaadka xurriyadda oo maanta ama caawa si rasmi ah markaas loogu dabaaldegi doono insha Allah hadduu ee bahraal ka noqdo adigana ka qayb qaado dabaaldega haddaba daawade nala wadaag oo fikirkaaga nagu hoos noogu reeb halka aad ku dabaaldegayso maalinta ama caawa subaxii ilaa iyo markaasi maalmaha ilaa kooda luuli laga gaarayo oo ah maalmaha toddobaadka ama toddobaadka xurriyadda nagu dhiirigelina subscribe noo saarto una sheergalaysan saaxiibadina kale meel kasta joogan idinkoo markaas ku mantiga like-na inoo reebay waad ku mahadsantihiin daawashadiina warbixino kale oo muuqaalo aad u xambaarsan iyo muuqaalada madaxweynaha iyo munaasabadda qaabka u dhacaysa ayaan idin soo gudbin doonaa fadlan isku haya channelkeena ka aha wararka aad baan kaga mahadcelinaynaa halkaas aan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyo